السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلية تحنيني بايبلك محاكرون وديغانيه وقال شعيب حاج عيسى موضوع يدي هوري وحاينو كغسو هذا إن كتابك بايبلك وحلقو درائية إن كالي موضوعا وحاينو كغهد لدونا إن كتابك بايبلك يكو جيران وح إسكهور إماد oon la iswaafajin karin iskhilaaf wuxuu iman karaa markii fikrado aan isqaadan karin madaxa la isku guliyo tusaale ahaan haddaan dhaho lacag baan haystaa haddana aan dhaho ma haysto wax isqaadan kara ma ahan sidoo kale waxaa muhiim ah in iska hor imaadyadu noqdaan kuwa aan la iswaafajin karin waayo mararka qaarkood waxaa dhacda in buug fikrad qaybteeda hal meel ku sheego halka meel kalena qayb kale ku sheego balse labadii fikradood markaad isku keento maaha kuwa istiidaya kitaabka baybalka aad buu u badan yahay sida awgeed dadka badankood aad bay ugu adag tahay in kitaabka oo dhan ay akhriyaan ama ay xifdiyaan haddaba qaabka ugu fudud ee lagu arki karo in kitaabka baybalka ka kooban yahay iska hor imaadyo iyo in kale baa ah in la isku fiiriyo waxa buugta kala duwan ee baybalka ka oranayaan hal mowduuc ama hal sheeko tusaale buugta baybalku waxay ka hadlaan abtirsiimada Ciise midba sibuu uga hadlaa si kooban si aad u aragto in kitaabka baybalka iskhilaaf ku jiro buugta baybalka isdhinac dhig fiirina waxa hal buug ka oranayo arrin dabadeedna fiiri waxa uu buugga kale ka oranayo arrinkaas taasi waa habka ugu wanaagsan ee aynu ku ogaan karno in kitaabka baybalka iska hor imaadyo ku jiraan iyo in kale inaga oo qaabkaas hore adeegsan doona waxaynu hoos ku soo qaadan qaybo ka mid ah kitaabka baybalka si aynu u ogaano inay ku jiraan wax iskhilaaf ah kuwaasoo aan la iswaafajin karin aqoon-yahano badan ayaa aaminsan in kitaabka baybalka ay dadku faraha la galeen taasina keentay in kitaabka laga helo iskhilaafyo iyo khaladaad waxaanu soo qaadan qaar ka mid ah khilaafkaas ku jira kitaabka baybalka sida aad arki doontid iskhilaafyadan maaha kuwa la iswaafajin karo Ciise Masiix iyo gabadhii yareed ee uu soo nooleeyay waxaynu wada ogsoonnahay in Ciise Masiix samayn jiray mucjisooyin waaweyn sida qof dhintay oo uu soo nooleyn jiray kitaabka baybalku wuxuu ku hadlaa sheekada gabadha oo Ciise Masiix soo nooleeyay gabadha waxaa dhalay nin lagu magacaabo Yayros kaasoo hogaamiye ka ahaa mid ka mid ah sunagoga meelaha yuhuuddu ku cibaadaysato aabahaasi wuxuu u yimid Ciise Masiix oo dad badan la jooga wuxuuna ka codsaday inuu gabadhiisa caawiyo sheekadan waxaa si faahfaahsan uga hadla buugta Markos iyo Matayos inkastoo sheekada guud ahaanteeda isaga mid yihiin balse way isku khilaafaan goorta gabadhu dhimatay buugga Markos wuxuu sheegaa in gabadhu sakaraad ahayd xilligii aabuhu u imaanayay Ciise Masiix balse weli ma ayna dhiman halka buugga Matayos sheego in gabadhu xilligaas meyd ahayd Markos cutubka 5 aayadda 22 ilaa 43 buuggan wuxuu qoraa in xilligii gabadha aabaheed u yimid Ciise Masiix ay gabadhu ahayd mid xanuunsan oo geeri qarka u saaran balse ma aysan ahayn mid dhimatay buugga qoraya in aabuhu dhahay gabadhaydii yareyd waa sakaraad kaale oo gacmahaaga saar inay bogsato oo noolaato markaasaa Ciise raacay Markos cutubka 5 aayadda 23 ilaa 24 buuggan wuxuu ku daraa in Ciise intuu jidka ku sii jiray uu la kulmay haweeney xanuunsan oo qabta cudurka dhiigbaxa taasoo iyana rabtay in la daaweeyo waxaana dhacday intii uu Ciise Masiix haweeneydaas ku mashquulsanaa in gabadhii yareyd ee sakaraadka ahayd ay dhimato balse Ciise Masiix baa aabaha u sheegay in uusan welwelin wuxuuna tagay gurigii soo nooleeyay gabadhii yareyd Matayos cutubka 9 aayadda 18 ilaa 25 buuggan wuxuu sheegaa in gabadhu meyd ahayd xilligii aabuhu Ciise Masiix u imaanayay buugga qoraya in aabuhu yiri hadeer bay dhimatay laakiin kaale oo gacantaada saar oo way noolaanaysaa Matayos cutubka 9 aayadda 18 saan u jeedno labada buug waa isku khilaafeen waqtiga waana iska hor imaad inkastoo sheekadan muhiimadeedu yar tahay balse waxay caddayn u tahay in kitaabka baybalka laga helayo iska hor imaadyo sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa qaar kale oo ka mid ah iskhilaafka laga heli karo kitaabka baybalka